السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سياسيينتا علماء دينك سلاطينتا بقاشة وحقرتك دلنيرة iyo dhamaanba ka soo qayb galayaasha xafladan waxaan mar labaad idinku salaamayaa salaanta islaamka anigoo ku hadlaya dhamaanba magaca gudida qabanqaabada shirweynaha beelaha Arab ee afgarad waxaan idinka mahad celinayaa ajiibida anaga ajiibteen ka soo qayb galka xafladan horudhac sida madasha idinka muuqata haweenka beesha Soomaaliya casuumin madasha macnaheedu maaha in haweenka beesha laga maarmay waxaad ogtiin hawlaha shirarka iyo istiimaadyada quruxdeeda in ay tahay haweenka uguna shaqo badan yihiin sida daraateedna kulankeedu dib ayaan u dhiganay ayaan loo qaadanin in laga maarmay haweenkii inta kadib haddii aan dib ugu yaran noqdo warbixin yar oo kooban aan shirka afgarad wuxuu ka soo bilaabmay qurbaha waxa dhowr jeer oo hore lagu soo qabtay dalka dibadiisa kaasoo ay soo qabteen qurba jooga beesha go'aankii shirkii u dambeeyay waxa uu ahaa in ka u dambeeya oo loo wada dhan yahay gudaye dabadba lagu qabto dalka gudihiisa una noqdo ka soo gabagabeeya waayaha beesha sida horumarinta arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo waayaha beesha ee dhinac walba inta kadib waxa la magacaabay gudi qabanqaabo taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2013 fadhigii u horeeyay waxa ku beegmay waqtigii loo diyaar garoobay xajka kadib dib u dhac ayaa ku dhacay is-aragii xubnaha gudida muddo dheer kadib waxa dib loo soo amba qaaday hawshii iyo dhaqaajintii shirka iyada oo lala xiriirayo gudiyadii hore ee qurba jooga talana la isweydaarsanayo inta kadib waxa la doortay gudi fulineed oo loo xil saaray hawlihii shirka sida goobta waqtiga tirada ergada kharashka muddada shirka iyo ajandaha shirka iyo baahiyaha shirka muddada uu soconayo inta kadib gudidu waxay u ambabaxday sahankii deegaanka beesha si loo sahamiyo goobta shirka sahan dabadii waxa arrinku noqday goobta shirka ugu habboon ee la qaban karo tala badan iyo wada tashiyo dhinacyo badan oo loo eegayo haleelka qurba jooga cimilada goobta maadaama dadka guduhu ay xogogaal yihiin oo ay xaaladda ka warhayaan waxaan xooga saarnay qurba jooga iyo waqtiga ay ku iman karaan annagoo eegayna in ay fasaxooda ku beegmo waqti shirku qabsoomi karo dhawaaqida maanta aanu ku dhawaaqayno waqtigan ujeedadeedu waxay tahay in qurba joogku codsigooda fasaxa hore u gudbistaan cimilada deegaankana waqtigaasi ay aad u qurux badan tahay sidaan ilaahay uga baranay sidaas darteed shirkan oo kamid ah mid ay beeshu muddo dheer sugaysay in la wada tashado bari ilaa galbeed waxaan maanta oo taariikhdu tahay 12/3/2014 si rasmi ah ugu dhawaaqaynaa in shirka beelaha Arab qabsoomi doono 10 bisha 6 2014 ku beegan bisha Shacbaan 12keeda maalin salaasa kuna qabsoomi doono magaalo madaxda gobolka Hawd ee Beligubadle haddii Allah idmo magacyada gudida qabanqaabada Maxamed Xuseen Xirsi oo aniga Jaamac Xuseen Axmed waristaag محمد عبد حسين انجينير محمد عبد حسين ولي يقول نقدونها واي عبد الرزاق محمود حربي حسن ظاهر حرسي عبد الله عبد الدلمر عبد الهبوب انجينير محمد عبد الله شغله احمد ابراهيم عيدي عبد الخالق شيخ احمد عبد الرحمن محمود عراله ninka Cabdiraxmaan Maxamuud Caraale reerkiisana maaha waana gudidii Arabari runtii xil weyn buu iska saaray inuu shirkaana la joogo saacad walba ammaan gaar uu nagu leeyay maadaama aanu deegaankiisa ahayn wax qarasha iyo hoteelkiisa iyo isaga isu qabay aad baan ninka ugu mahadnaqaynaa hadaan gudidanahay Ibrahim Maxamuud Axmed uu naga maqan yahay Mawlid Maxamed Axmed waxa weeye ninka wakiilka Beligubadle nooga Mawlid عبد الله إبراهيم علمي عظمي محمد عيديد محمد وإمامك مساجد إيوه إبراهيم أحمد رابي عبد الله أحمد رابي انت أصلي قلت ديدو
waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaan ugu garab siisaan hawlaha wixii noo hadhay idinka idin yaalaan annaga nooma yaalaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu